السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا جنالك تتر حالنا كهير aad ugu barataan markasta inaad ka dhageysataan casharada caafimaadka sida barashada daawooyinka farmakolojiga ah. Caawa waxaan ka hadlaynaa daawada Diclofenac. Diclofenac maxaa la dhahaa? Waa daawo xanuun baabiyaal ah oo wax maandooriye aan lahayn, non-steroidal anti-inflammatory drug. Daawadan waxaa la soo saaray 1965. Daawadan Diclofenac waxay ku timaadaa noocyo kala duwan oo ah 4 nooc. Lambar 1 in ay ku imaato kiniini tablet oo ah 50 mg, 75 mg, 100 mg. Lambar 2 cirbad injection oo ku timaado 75 mg IM iyo IV. IM iyo IV waxaa la kala dhahaa IM waa midda muruqa laga siiyo ama sinta ama garabka. IV na waxaa la dhahaa qofka in xididka laga siiyo. IM intramuscular, IV intravenous. Lambar 3 Subosto. Subosto waxay ku timaadaa 25 mg, 100 mg. Lambar 4 Bomato Diglo gel oo ku timaado 30 mg ama 30 mg. Indication daawadan waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunka pain and inflammatory disease sida kala-goosyada xanuunka, joint pain, lafa xanuun, rheumatoid arthritis, ilka xanuun, dental pain, jugta, traumatic pain, iyo xaaladaha xanuunka ka dhasha iyo kiliyaha dhagaxaanta ku jiro kidney stone. Common side effect dhibaatooyinka ugu caansan u geysato dadka daawada Diclofenac waxaa ka mid ah lambar 1 calool xanuun abdominal pain. Lambar 2 gaaska mindhicirada gastrointestinal. Lambar 3 labolabo nausea. Lambar 4 madax xanuun headache. Lambar 5 barar swallowing. Serious side effect dhibaatooyinka ugu daran ee geysato daawada Diclofenac waxaa ka mid ah lambar 1 wadne xanuun heart disease. Lambar 2 afqalooc stroke. Lambar 3 cillad keliyaha kidney problem. Lambar 4 gaas calooleed stomach ulceration. Contraindication daawadan lama siin karo dadka qabo xasaasiyadda sanboorka iyo shoogga, iyo hooyada uurka leh ee 3 bilood ugu horeysa uurkeeda, laakiin waa la siin karaa hooyada nuujinayso breastfeeding. Maasha Allah. Qof kasta oo soo gaaro cashirkan fadlan subscribe dheh si aad u hesho muuqaalada kala duwan ee aan soo gelino ee cashiradan ku saabsan barashada daawooyinka farmakolojiga. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.